waxaa dalku uu qaadanaya nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa qof iyo cod oo shantii sanaba hal mar ah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Arrin aad u weyn oo mustaqbalka Soomaaliya oo dhan wax ka bedelaysa ayaa Soomaaliya ka dhacday. Ma la socotaa, ma maqashay? Dabcan wadamada dariska ah, wadamada banaanka ee dibadaha sida Turkiga, Mareykanka, doorashooyinka ka dhaca iyo waxyaalaha مثلا kusoo kordhay waaweyn caalamka inta badan way qaadaa dhigan way ka hadlaan. Annaga Soomaali haddaan nahay safka hore aan kaga jirnaba wariba. Yani waxaan ka hadlaynay muddo hadda aan fogeyn oo haddana laga hadli doona dabcan muddo dhow insha Allah taala doorashada Turkiga iyo wixii markaa kusoo kordhay iyo wixii la midka ah. Laakiin ma ogtahay Soomaaliya nidaamka iyo siday dawladda u shaqeynaysay iyo qaab dhismeedkooda inuu meesha wax ka baxay oo isbedel weyn u dhacay. Waxa laga takhalusi doonaa ama meesha ka bixi doona ra'iisul wasaare dambe inaad maqasho nidaamka madaxtinimada dalka si loo mideeyo hanaanka doorasho ee hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loona dardargeliyo habsami socodka dawladnimadeena waxaa dalku uu qaadanaya nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa hal warqad ku dooranaya shacabka Soomaaliyeed iyadoo lagu saleynayo nidaamka xisbiyada badan. qodobka 8aad mideynta muddada doorashooyinka doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa qof iyo cod oo shantii sanaba hal mar ah. si loo mideeyo muddada doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxay doorashooyinku ku qabsoomi doonaan sida soo socota. 1 dowladaha hoose waxay doorashadooda dhici doontaa 30 Juun 2024. 2 golaha wakiilada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxay doorashadoodu dhici doontaa 30 November 2024. 3 madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxay doorashadoodu dhici doontaa 30 November 2024. ra'iisul wasaare Xamza jooga khayre iyo waxa ka horeeyay Maxamed Roble ra'iisul wasaarayaashaas oo dhan waxay ahaayeen dad markaa magacaasi ra'iisul wasaare leh tii meesha ka bixi doontaa 100% waxa dhici doona madaxweyne ku-xigeen. waa nidaam cusub aad iyo aad Soomaali ugu cusub shartiisa iyo khayrkiisana oo imaan doona taa waxa ka daran insha Allah taala gadaan u dhiganaya oo aad ku iyaabka badan arimaha noocan oo kala maxaa dabcan keenay waan u imaan doona. laakiin hal faa'iido ayaan arkaa. hasha faa'iido waxay tahay isdaba oradkii madaxweynaha go'aan uu leeyahay, ra'iisul wasaaraha go'aan kale uu leeyahay. caalamka kama dhacdo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare labadaba isku awood ah isgarab socda. يعني waxayna kamid tahay waxa ummadda Soomaaliyeed meesha maanta ay joogto number 1 keenay adduunka kama dhicin. macnaha macquul ma ahan in gurigan oo 100% laba aba yeesho. macquul ma ahan adduunka kama dhicin wadan laba hogaamiye hal mar wada yeeshay. macquul ma ahan, ma dhacdo. sunnada Ilaahay tabaaraka wa ta'ala sida ma ahan, bal Allah tabaaraka wa ta'ala asagoo ka hadlaaya kelinimadiisa, waxdaaniyadiisa, keligiisa inuu yahay abuuraha, yani barbaariyaha koonkan cidda iska leh inuu asaga yahay ayaa wuxuu yiri ma taqaanaa am ittakhadhu alihatan min al-ard hum yunshirun law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. ufirs Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay adduunka miyay gaaladaasi ka dhigteen in ilaah kale uu joogo. am ittakhadhu alihatan min al-ard hum yunshirun yani ilaahay wax soo nooleeya ilaahiya maamul iyo nooleyn iyo awood leh miya adduunka u jooga. waa maya. law kana fihima alihatun illa Allah samaawaadka law kana fihima samaawaadka iyo arlada hadduu jiri lahaa ilaahiya kale ay jiri lahaayeen la fasadata cid ku heshin lahayd ma lahan way fasahaadi lahayd maamulkan nidaamkan waxaan siday u socdaan ma aysan dhacdeen arzaaqati toos loo heli lahaa ma jiri lahayn. yani maalin walba waxa la maqli lahaa ilaahiyada isku dhagan ilaahiyada is haystay wixii la midka ah. sidaa darteeda Soomaaliya mushkilada iyo aafada ku dhacda waxay ahayd waa maxay ra'iisul wasaarihi madaxweynaha isku dhagan iska laalaada maxaa waa laba awood. yani ra'iisul wasaaraha madaxweynaha doortay laakiin madaxweynaha xilka kama qaadi karo. okay qof aan xilka qaadi karin marka muxuu ku sheegayaa dabcan isku mid atiin. haddana waxa cajiib ah Soomaalida inta badan waxa noo qoran ama aan qorano kuma dhaqanno. qofkan awood gaar ah oo leeyahay oo waxa ah ayaa jirta kana sidaas oo kale. laakiin waxa isku lafan ma taqaanaa qof walba sidoo doono u fasiranaya. macnaha cajiib yani ma jira marka madax ama qof loogu yimaado la dhaho qofkaas wadanka maamula ama asaga ugu sareeya khilaaf joogto ah. intaas oo san ilaah baan kugu dhaarishay Soomaaliya maxay la soo dhuntay 20 ra'iisul wasaare bedel
رئيس الوزراء مدحوينه اسكو دغن حفيظ رئيس الوزراء كسو بخدي تنا سو بخدي مدحوينها ورخدي ردينايا عكسيده مدحوينها ورخد سو ساري رئيس الوزراء ديدايا سبحان الله halkaasina dhigtay marka arinta marka waa isbedel aad u weyn wanaagsan nacam waan arki doonaa Soomaali sida ugu dhaqanto iyo wixii la midka ama inuu xataa hirgeli doono waan arki doonaa ko number 1 mid labaad waxay tahay nidaamkii 4 sano ahaa ee la dooran jiray madaxda dawladda oo laga dhigi doono 5 sano arintaas inuu wanaagsan tahay doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waa qof iyo cod oo 5 sanaba hal mar ah labadan ba waxaan dhahayaa waa wax fiican oo wax soo dhaweyn mudan okay 4 sano way nagu yar tahay 4 sano wax lagu ma qaban karo 4 sano way dhamaatay kada in badan ma khalna Soomahan 5 sano at least halkaas sana ziyaadada ah wax un isbedel ayuu keeni doonaa arinta marka oo aan dib u dhigtay la yaab kale isweydiinta mudan ayaa waxay tahay Soomaaliya halkay joogtaa dadka arintan ama qodobadan ama sharciyadan soo saaray horta waxa la dhahaa golaha wada tashiga ee qaranka waa madaxweynihii wadanka ra'iisul wasaaraha oo isa socda iyo dawlad goboleedyadii baarlamaankii wadanka aaway awoodii aaway baarlamaankii ummadda la yiri ayaga soo doortay ama shacabku matala ama la yaqaanay in arimaha noocan oo kala masiiriga ah in ayaga ka doodaan dajiyaan go'aamiyaan aaway halku jooga waxaad arkaysaa qof walba marka Soomaaliya madax ah baarlamaan ha noqdo madaxweyne ha noqdo dawlad goboleedyada ha noqdaan wuxuu haystaa awood oo asaga isleeyahay cid ka sareysa malahan macnaha ayaga ma lahayn inay soo saaraan go'aamada noocan oo kala sida u weyn maya malahan asal ahaan malahan sababta ugu weyn u yeesheen ama ay dabcan awooddaasi u leeyihiin waa maxay waxa weeyaan madaxa Soomaaliya marka uu noqdo dawlad goboleedka ka noqdo ama federaalka ka noqdo inta badan dadkoo dhan automatically waxay aaminayaan yani waxaad u malaysaa arin lagu shabadeeyay lagu register inay tahay inuu ka sareeyo baarlamaanka inuu ka sareeyo wasiirada inuu ka sareeyo cid walba waa hadda madaxweynihii la doortay oo baarlamaanka doortay baarlamaanka kii dawlad goboleedka ha ahaado ama kii federaalka ha ahaado automatically hatta baarlamaanka wuxuu aaminayaa madaxweynaha in ka sareeyo waa sida madaxweynaha ay wuxuu awood u leeyahay baarlamaanka inuu kala ceeriyo in xibnuhu doono ka qaado dawladda federaalka dhexdeeda ay ka dhacday hadda korbaad ogtihiin waxay ka dhacday Puntland ay ka dhacday waad ogtihiin yani madaxweynaha awooddaas uu leeyahay ma madaxweynaha federaalka kaliya sida oo awoodda yani sheegana ama iskale la حتى دولة goboleedyada madaxweynayaashooda sidaas ay ku sameeyaan baarlamaankooda ama wasiiradooda yani ayaga ka taliya meesha sida darteeda nidaam ummadda isku raacsan tahay Soomaaliyeed ee baarlamaan ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo yani cid wax looga dambeeyo inta arintaas sidaas oo kale iimaanayso ama inaan jirin nacam wax badan inoo dhiman maxay haddaan niri oo aan meel saarno hal madaxweyne oo ugu sareeya wadanka u yeelanaya waa arin fiican maxay waa arin loo baahan yahay boqolkiiba boqol laakiin madaxweynahaasi ma waxa garab ordi doona sidaas oo kale madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada oo wali si lahaan doona golaha wada tashiga qaranka iyo ka hoos bixin baarlamaana jira aqal sare jira labo awoodood iyo golaha wada tashiga qaranka bal wadankan Soomaaliya u taliya waa arin cajiib ah ummadii Soomaaliya sidaas ay ku wareersan tahay marka waan soo dhaweynayaa ugu horeyn nacam waxaan soo dhaweynayaa nidaamka madaxweynaha hal qof inuu wadankii ka taliyo boqolkiiba boqol labo 5 sano in laga dhigo waan soo dhaweynayaa laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay saddexdan awoodood ee isgarab ordaaya Soomaaliya hadaan nahay ma danbeynoo yihiin la nooma noqon karaan shalay nooma ahaan maanta nooma ahan berina nooma noqon doonaan macquul ma ahan maxay wali waxa jirta awoodo mid walba hadda waxa laga yaabaa tusaalahan go'aankan waliba aan si hor dhaco waxa laga yaabaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo aqalka sare ee hadaanan afkooda la qaban ama la heshiinin sidii ahaataba ulama jeedaalush la siin ulama jeedo sidii ahaataba la heshiin oo laga dhaadhicin waxay leeyihiin la anaga ugu sareeyna meesha ma maraay arintaasi wax ka jir ma laha wixii la midka yani kan awoodo leeyahay kan awoodo leeyahay war wadanka sida laga ilaaliyo oo laga daayo Allah idin barakeeyo hal awood wax xukumaysa go'aanka iskale sida madaxweynaha tusaale ahaan ama baarlamaanka oo kale sameeya ummadii islaamka ee hore sidaas ay ku soo badbaaday inuu yahay qofka ugu sareeya golaha shuuro leeyahay ama baarlamaan uu leeyahay baarlamaankaasi golaha shuurada waa tashi iyo go'aankii weynaa ee ummadda masiirkeeda wixii la midka laakiin 20 baarlamaan 20 golaha shuure golaha wada tashi qaranka baarlamaankii iyo aqalkii sare subhanallah waa madax wareer waa khilaaf joogto ah waa horayaan loo dhaxaaqin oo lugaha midba midka kale uga taagnaado arintaasi waxaan baraarujinayaa marka laga fiirsado nacamta laaw fiican way dhacday hore waa loo qaaday laakiin talaabooyinka kale ee aad ku waaweyn ee saddexdan awoodood isgarab socda Allah idin barakeeyo ayagana meesha ka saara hal awood kaliya oo golaha baarlamaanka ama golaha wada tashiga ha noqdo ama aqalka sare ha noqdo hal u daaya sidaas wanaagsan sidaas ummadii hal meel ugu socon kartaa sidaas hormar lagu gaari karaa yani waxa rabnaa inaan dhahno ama Soomaaliya ay sheeganaysa adduunka way ka jirta arimaha noocaas oo kale waxa la dhahaa
iskorjoogtayn oo qoladan korjoogtaynaysa kada wax ka jira malaha Soomaaliya ma ka dhici karto waan soo aragnay imise sana arkaynaa iskorjoogtayn ma jirtee cid ama baarlamaanka kaligiis ha noqdo awood hala siiyo ama golahan wada tashiga ama aqalka sare Allah idin barakeeyo waxaan ku khatimayaa ra'iisul wasaare uu ku daay waa arin wanaagsan nacam sidaasi ha ku baxo ma dhici karta arintan in laga hor imaado ama la diido ama lugaha lagu dhufto way dhici kartaa laakiin ujeedada ugu weyn aan kula wadaagaa waxay tahay wadankeena wax weyn ka dhacay ma la socota ma og tahay maanta aad nooshahay inaad ogaato weeyaan waxaad og tahay doorashada ka dhacaysa Turkiga isay u dhacaysa iyo waxa socda iyo wixii la midka kaada number 1 ah inaad ogaato ogow Allah ku barakeeyo tafaasiisha waliba inaad ogaatad xaq u leedahay wassalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh